كسابسن fornication زينة. It is an immense honor. شرف باحد وين أي for me أنيجا إيتاي. To express إن قيحه my opinion فكرة إذا كلية لسعة إن نقيحه هي هل كان نقيحه. As we know سيدانو أغنهي الله إلهي prohibited وحاو ممنوعي many things شيئا سجا سيدا إسلاندا قذفك أيو ممنوعي قذف قفوح الصمينين أقول تغطى هذا هو سميه سمعنا كده ولبا ويا قف نورسن أو وحبا عن سمين هذا هو وحاسو سميه وحن قذف backbiting حمتا أما قذال كقنيني دا back وقذال بايدنا قنيني دوا backbiting طبعا رأيوا مالتا قذال كقنيني دا الله سمعنا كده ويا معنحن adultery وزنا دا انت بدل لك وحلو استعماله adultery هذا وحلو كلا صار محسن غير محسن هنا نين غورسدي او سميه زينو iyo nin aan guursan oo aan zina sameeyay marka qofka guursaday oo zinada sameeyay waxa la dhahayaa adultery marka zinada uu sameeyay waxa lagu magacaabaa adultery okay waa zinadaasi lying been sheegida envy xasadnimada and fornication zinada qofka marka aan guursan uu sameeyo taas loo kala saaray adultery and fornication sababana zaa fornication zinada seems waxay u muuqataa to be inay tahay one of the most hateful things shayga ugu nicitaanka badan ilaahay mid kamida niya Allah ilaahay agtiisa fornication zinada seems waxay u muuqataa to be inay tahay one of mid kamida the most hateful thing shayga ugu nicitaanka badan niya Allah ilaahay agtii let me iyo galow kumaysi inaan ku bilaabo iyada dusheeda briefly si kooban iyadan ka hadlaba iyo ogolaada fornication zinada is illegal intercourse waa isu tag xaraam ah illegal marka la yiraahdo aan sharci ahayn xaraam ah between u dhaxeeya unmarried persons shakhsiyadan isguursan according marka loo eego to Quran phrases ayadaha Quraanka fornication zinada causes waxay sababtaa poverty faqri and sickness ijro ayay sababtaa marka ayadaha Quraanka loo eego then kadib anyone qof walba should avoid wa inuu ka fogaada fornication zinada Allah ilaahay will banish wuxuu iqaabi doonaa the people dadka who do sameeya bad deed amal xun and Allah ilahi will reward wuxuu abaalmarin doonaa those kuwa obey adeeca his orders awaamirtiisa ama amaradiisa in the paradise jannada dhexdeeda ayuu ku abaalmarin doonaa we must waxaan ugu waajiba repent inaan ka qoomameyno inaan u qoomameyno oo u toobad keenno to Allah ilahi we must repent to Allah ilahi inaan u qoomameyno aan u toobad keenno ayu markaan ugu waajiba because maxaa yeelay Allah ilaahay can forgive us waxa suuragal ah inuu nacfiyo ama uu nacfin karaa can forgive us uu nacfin karaa finally ugu dambeyntii I supplicate Allah ilaah ayaan ka baryayaa to guide us inuu nagu hanuuniyo the straight and right path wadada saxan ee toosan straight waa toosan rightna sahan and not make us usan naga dhigin those kuwa who went astray baadiyoobay ilaah baan ka baryaynaa markii inuu ilaahay naga dhigin kuwa baadiyoobay